بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله لا شيء ذاك نقول horta waan yaabay marka baalkan daawaday waan yaabay suldaanka isaga iyo shan oday oo kale waan u yeeray aanu been ma sheegayo isagana ma oran karayo been buu sheegayaa laakiin hadalkiisa hadal aan sunin ma ahayn suldaankan runtii ugu kalsoonida badnaana uu ahaa salaadiinta buu ku jiray aan ugu kalsoonida badanahay ka mid buu ahaa wuxuu igu yiri waxaan ku yiri Suldaan meeshaas faarxood leeyahay buurta waa buur dhakadeed sharciguna wuxuu tilmaamayaa la barsi 17 inaan buuraha dushoodu ay danguutay iyo boholu mid labaadna waan ku sheegaya waa sidii aanu yiri waa bir rabadaan meesha baadhis baa loo soo diray waxa bariga hore ku eedeysan saydici baadhis baa loo soo diray baadhista loo soo diray annaga loo soo diray oo waxa loo soo diray meesha buurta lafteeda ma fahanti inaanu saydici luku leeyahay inaanu ku lahayn waxa cadaatay saydici inaanu luku lahayn meesha cid loo doonayaa inay tahay agoon iyo urur la yiraahdo sawd oo gacanta ku haya oo masruufa agoon maahay waa dad naafa oo jir daran oo ciyaala kilisa oo gobolka cid walba oo degta ay ku jirto oo aan qolo ahayn oo seelic reerkooda ahayn oo kuwan wada reerkooda ahayn ee cid waliba ku jirto waa rabadaani maadaama sidaa tahay buurtaasi waa danguud waxa ka dhisan biyihii kaydkii biyaha oo dhan halkaa ku xigtay waanu qabanaynaa Suldaan waxaanu marka hore ku ogeysiinaynaa oo ku sheegaynaa meesha waa la dhisayaa caruurtaana waa loo dhisayaa ururkaana waa la siiyay mana nagaanayso meesha bariga horena waanu yar joojinay hase ahaatee baadhis baa noo soo diray aniga xil baa laga eeriyaa meeshu ka keenay garan maayo seelic meeshu igula soo hadlay ma garanayo aniga seelic igala hadlayna ma jiro wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dalka wixii arrimaha gudaha xukunta anagana xukunta anigu lay minister seelic imay waxaan u hay wasaaradda arrimaha gudaha hadduu xataa amar bixinayo waa madaxweyne ku xigeen la doortay de wasaaradda arrimaha gudaha ama wasaaradda caafimaad hadba wasaaradda shaqada leh ayuu wasiirkeeda amar siiya laakiin annaga isaguna ma siine baadhis wasiirkayagana baadhay booliiskana baadhis baa noo soo diray inay meeshaasi tahay meel danguuda hawlaha guud warqad buu soo qoray hawlaha wasiirka hawlaha guud uu ku cadeynayo oo aan haysto oo aan tix raacay inay meeshaasi meel danguuda tahay oo aan idina sheegan karin reer yaalina ma jiro xabaal ka qudneed ma jiro waa rabadaan oo wallahi waxaan cod dadka tusaya inuu ninkaasi aanu wax de waa Suldaan kulay dad budda Suldaan u yahay laakiin waan la yaabana gurigaygu iigu yimi isagoo gariinayo barasaab anu gurigiisa ma aqaano meel ku yaalo ugu mana tagin ana u yeero xafiiska ugu yeero shan oday bay haayeen oo in maadiradii Cabdi Xasan baa ku jira kuwan u yeeray war meeshaas ma nagaanayso warqadaas laga keenay baadhis baa la sarsaan hore ku sheegay ka gurta alaabtiin seelici bay furayna iyo fiis bay furayna wallahi baa ku dhaartay inaan xabaal ka qodneedna jirin waan tagnay inaan jirin guri ka dhisnaa sadaqada bardhawaad xintan loo saaray xintan sagu oo xintan u geeyay waxa ku Suldaan waan meeshii waa la dhisayaa agoontaas loo dhisayaa waxay la mid tahay meeshii ka horeysay ee aan reer faaraxaba ka qaadnay taangiga labaad ka dhisnay taangiga labaad biyaha xagaa laga dhisay bal umada hal la geeyo alla tusoo la arko bal markaan meeshu sheegayo halka ku xigta waa taangigii labaad ee kii hore markii uu jeexmay biyaha laga sameeyay waxaan ku waan dhisaynaa waan meeshii ma nagaanayso arintaas waxay noqotay meeshaas meel danguuda wasaaradda hawlaha guud baa waraaqda soo cadeysay oo ku soo cadeysay inay danguud tahay hana la siiyo sawd ururkaas ha u dhisay agoonta ama warshad ha uga sameynayaan ama guriyaha uga sameynayaan annaga nama khusiiso haddii warshad looga sameynayo dadka yaryar masaakiinta reerkiisu ku jiro caruurtoodii baa looga sameynaya ka kaalay ka gurbaan ku niri waa la gelayaa meesha waa la sameynaya waa la dhisaya wuxuu yiri isii waqti aan kaga gurto alaabto
wuu ka soo gurtay markuu ka soo gurtay wuxuu yidhi laba ina baa iswaalwaalay waanu xidhnay wuxuu yidhi sii daaye waxaanu ku nidhi shuruuddii dhammay horta meeshii markuu ka wada dhammaystay buu yidhi labadiina haddaba ii sii daa aniga meesha way iga fasaxan tahay wax iga joogaana ma jiraan wax iga jiraana ma jiraan sidaasaan isla garanay aniga waxay gelisay nabadgelyadan mas-uulka gobolka aniga nabadgelyada ugu sarreeya oo jooga oo ka mas-uula inaanay meeshaa shida ka dhicin ayaan intaan u weydiiyey kuna dhammaystiray maayirkuna wuu ila ogaa waa markii labaad ninkaan u diray ee la hadlay wuxuu sidaas la eeg baanu isla wada garanay macal taliyaha ee qaybta meesha bilaa rabshad sadaqadahana xasaraad baa loo dhigay xintan anaa caddaynaya inaan hore u ooli jirin oo anigu aan tagay intaan joogay iyadaan hallaba ka dhisnayn ayaamo loo geeyey xintan annagaa dhisnay annagaa sawad amar baanu hawlaha guud baanu soo amray inay meeshaasi daguud tahay baadhis baa loo soo diray waxay caddeeyeen oo dhiklar gareeyeen inay meeshaasi danguud tahay sidaa taangiga biyuu uga dhisan yahay baa meeshii buur iyadoo keligeed maaha wuxuu buuruhu inay nala qabaan waanu wada calaamadnay buuraha ma wixii hareerta hoose caddee dhinaca hoose mise dusha sare waa danguud wixii dhinaca ah ee sanaagyada waxay qaadanaya ha qaataan ee dee beerahooda ay ahayd saasaanu wada calaamadinay inta kalena waanu calaamadinaynaa horena waanu u ballan qaadnay buur dusheed nin sheegan karaa iyo nin qaadan karaa toonna ma jiro sidaasa kaga baxayta gudoomiye haddaan ku weydiiyo run ahaantii meeshan hadalkeedu wuu batay waxa iyagu ku doodayaan ehelada buurtaa sheeganaysaa inaanan loo doonayn dhul danguude dhul dan shakhsi loo doonayo dee bulshada maad u kala cadaystaan oo waan caddeeyey waan caddeeyey waxaan ku yidhi baadhis baa loo soo diray inaanu madaxweyne ku-xigeenku shaqo ku lahayn oo reer shaqo ku lahayn oo qof shaqo ku lahayn oo waxaasi dan guud ay ahaayeen sooniga wax ku caddeeyey meesha biyaha ee laga sameeyey laba taagaa ka samaysana waa meesha ku xigtee ma dan guud baa mise waa dan qof leeyahy sidaasay la mid tahay waa dan guud baa laga samaynayaa ururkaas sawad wuxuu u shaqeeyaa oo gacanta ku hayaa caruur naafa oo waxbarashadooda iyo cuntadooda iyo noloshooda iyo waxooda dhan uu gacanta ku hayo sidaan aad iminka noo sheegaysa hadda wax iska bedelan bal ka waran anaa beenaala laakiin maxkamadda dadku ha qaadaanoo ha tagaanoo ha la ogaado xaakinkana dee marka hala saaro boqorkana hala saaro dee maxkamadda la saaray aniga bulshada noo qaadaysa